normal prescription. والله السلام عليكم دمانتي وانا السلامايا انت ميشو كجرتا ادي ادبا مهدسنتيين وحوغا دادبان سوغايا انت دادكو سو بدانايان ساعدنا soo jeedo run ahaantii mar dhaweedan shaqo horta ka soo baxay aan ka soo baxay hadan waxay heeday arin yar aan rabaa inaan ka hadlo sidoo kale waxay heeday arinkaas oo waliba aan ku salaamayo gabadha Caasha إن شاء الله أنت تكسو معركتين سو دوانايان سو بدنايان سوغايا بل أنتنا كلنا واد سلامتي سيدو كلي ليبان دكتور لين actually Soomaaliga kuma fiicni iga raali ahaw horta intiina meesha ku jirto dhan wad salaamantihiin salaanta islaamka ee qaaliga ah ayaan nagu salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت ماشي كجرتو دن soo dhawaadaan leeyahay inta waxoogaa idulqaata dadkiisu ay imanayaan hadii kalan waynu ku sii socon insha Allah soo dhaanta caawa noo saaray kulay iska fiicantahay sometimes saa ma badni laakiin iska dhageysanaa soo dhaantada dad jeceshiin oo kooxeed hadeedaan ka helno wadi soo sheegi kartaan run ahaantii
wallahi. Oh my god, soomaaliga ma akhrin kari, waan ka xumaha, iga raali haada. af soomaaliga waan ku hadlaa, mana dhahayaan ingiriis baan aqaana. ingiriisna ma aqaani, soomaalina ma aqaani si loo aqriyo, ma fahanteen? marka aniga soomaaliga baan ku hadlaa. haddaad lacala message soo qortaan dhagoolaan kahay, waa laga yaaba ingiriis inaan wax yar isku dayo. I speak Somali. Somali. Yeah. Ani Soomaaliga waan ku hadlaa, laakiin waqtigii iskuulka la aadayay waxoogaa cuntadan badsanayay, marka nasiib uma yeelan inaan iskuul wadankii ku aado. xagga laftarkeygana wallaahi waan aaday, waan tegay, laakiin halkii aan rabay ma gaadhin. insha allah kulli waan dadaalayaa. saad u taqaanaa neeras af Soomaali, kulli inaan saa noqdaan rabaa, laakiin inta ka horeysa dee qof waxaan ahay ilmo haysato hooye ah, soo ay xaafta wixii dantayda ah inaan marka hore qabto. soo ma way fiicanta inaad naftaada wax u barato. waxbarashaduna waa horumarka. I know. walaalo maxaanu horta liibaano, waad mahadsan tahay. good question, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. ani af Soomaaliga waan ku hadlaa, laakiin wallaahi nasiib uma yeelan waqtigan wadankii joogay inaan iskuul aado oo waxbarasho maaragtay xaggeyga aan aado. I don't know, wax aan horta ma aqaani somehow. talabaadna waxaan iska aaday gabar reer u weyn baan ahaa, curad baan ahaa. gabdho badan oo aadayna way jiraan, laakiin ani nasiib uma yeelay inaan iskuul aado waqtigaa. laakiin alxamdulilah, waxbarashadu yaraana ma laha, weynina ma laha. I will try insha allah inaan ku hadlo, inaan akhriyo Soomaaliga. laakiin Soomaaliga waa isku dayay like so many times inaan akhriyo. waxaan ka aqaanaa maasha allah iyo alxamdulilah iyo assalaamu calaykum sida loo qoro. those things baan ka bartay run ahaantii, laakiin insha allah waan dadaali doonaa haddii ilaahay idmo. waa mahadsan tahay liibaan. thank you. no problem abo, waa caadi. good question, waa la isweydiiyaa su-aalaha. ani su-aal qofkii iyo qaba way weydiin karaa. waxaan halka u joogaa waaba su-aalaha, soo maaha. dhammaan intiina kale ku jirta. cabdifataax xasan walaalkay waa ku salaamay, soo dhawow. waa ku garanayaa. sidoo kale hodan, soo dhawow walaal. insha allah dhammaantiin waan idin salaamayaa. xogaa dadkan sugayaa. waxaan ka hadli doonaa insha allah mawduuca aan rabo inaan ka hadlo. maanta gabadha Caasha ka hadlaysay, kulley waxaan haystaa because hadda shaqo waxaan kasoo baxay 12 o'clock markay ahayd. so inta caruurta soo qaadayay intii oo dhan time is up, so almost 3 ku socotaaba. okay, so shaqadeeda labaad beri ofaan ka ahay. okay, so Caasha walaashay, videogaaga waan ka xumahay. waqtigii aad hadlaysay waan soo baxay, bareegaygii ahayd. kama gaadhin inaan si fiican u daawado. laakiin Caasha waxaad ogaataa markii maaragtay aad mawduuc lasoo fadhiisato, special weliba aad Facebook dhex timaado oo damacda inaad wax ka hadasho,
so most people way ku taageerayaan, most peoplena way kaa hor imanayaan oo maaragtay waxaa laga yaabaa waxyaalahaad leedahay inayna dee isku fikrad ahayn oo aditaad aaminsantahay moyto kale iyagu aaminsan yihiin. However, so waan arkay maanta markaad hadlaysay, special caaw markaa hadlaysay, so the thing I try to say, dadka ku soo caayay ee wax ku dhahay, horta Soomaali waxaa ku hadashay af caytamay, af aamusaabiye. run ahaantiina markuu qofku caayo lalama caytamo. hore Soomaalina ugu mahmahday af daboolan waa dahab. run ahaantiina gabadhii gabadh cayda kole iyada waxay tahay unbay gabadhan ku cayday. Caasho hooyaa tahay, cay malihid, ceeb malihid, you did good job, kuna soco welina insha Allah halkaa rabto waa gaadhaysaa. wixii taladaada ah, wixii fikradaada ah, cidna ha ka waji doonani. wixii fikradaada soo jeedi, wixii niyadaada ku tiraa soo jeedi, saad ku socoto ku soco. dadka ku caayay noqotay wantinkiyaa ku filan. weligaa Allah markuu qof ku caayo sharaftaada maaha, qof layskumana qaawiyo, lalamana caytamo. waxa kaliya welibana special markii Facebook tahay ma tiidin laba qof oo daris ah ama loo kala gar qaadayo ama iska hor imanaya. waa oolkaa dheer kuma dhaxan tirto. nacam qofkaa fog wuxuu kaa qaadayaa iska yar. nagaa caytamayna dee aqoonba kuma laha. so baloog gabigooga ku jeed, meel lagaa caayaba qofkii hadal xun ku dhaha iska baloog garee, ilaahaa ka jazaaysiinaya. qofkii qof walaalkii caaya ama aflagaadeeya ama waxun dhaha. marka maxay ahayde walaashay Caasha, insha Allah waxaan kuu rajeynayaa guul. insha Allah waxaan kuu rajeynayaa kulley aniga waxaan ku jiraa dadka ku taageersan. ani kulley aqoonsaas u badan kuuma lihi, laakiin intaan kaa arkaa kulley igu filan. Soomaaliduna waxay tiraahaa qof aadan saacad ku baran sanad kuma baratid. ani muddo dheeraan friend Facebook ka nahay, saasoo tahayna gabadh wanaagsan oo baan kulley ku arkaa. magacaaguna iguma cusba. marka insha Allah walaasha guul baan ku rajeynayaa. talabaad gabdhaha caytamaya ee gabadha caayaya waxaan leeyahay xishooda walaal. caydu ma fiicna. weliba shaqada hadda Facebooka ka socda most of them indhahay soo xiranayaan, afkay soo xiranayaan, waxa rabaan ka hadlayaan. marka inkana cayda iska daayaan leeyahay. marka aniga arrinka aan u soo fadhiistay halkan u soo joogsaday waxa weeyaan fikradeeda caawa ka hadlaya. fikradaasoo ah siyaarar masaajidada ku yaala. masaajid ilaahay looga cabsado oo lagu tukado miyaa mise waa masaajida qabiil? ani maalinta igu yaabka badnayd waxa weeyaan duq baan qayd siinayay, walaa ilaaha iga sareeya. wuxuu yidhi adeero hee roob baa daa, waan u joogsaday, waan ka naxay. adeer baan ku yidhi ma ku qaadaa? haabuu igu yidhi iqaad, waa u baahanahay. waxa weeyaan duq weyn buu ahaa. waan soo qaaday. halkeen ku geeyaa baan ku yidhi. wuxuu yidhi adeer masaajidka ree hebel igee, qabiil hebel masaajidkiisa igee. qabiilka laftarkiisa inaa meesha ka sheega ma rabe.
dadaa moodaya in lagu agtaagaraynayo baarahona saydaan. So most of the siyaara masaajidada ku dhisan qabiilay u dhisan yihiin. Be honesty, qofkii diidi iyo qofkii ka xanaaqiba, because maanta qof hadday dhibaata ku dhacdo waxaa la leeyahay yuu yahay, yay tahay. lama dhahayo qofkan waa qof muslina caawitaanu masaajidka u soo doontay, lama dhahayo. masaajid baad u tagaysaa cibaado iyo dar ilaahay, islaam baa kaa soo horbaxaysa, waxay rabtay ku leedahay meenas anaa ree hebela masaajidkan dee waxba iskaa kaa dhigaysaa inay kaa xigto. That is wrong. baytullaahi weeya, naa baytu qabiil. marka masaajidada siyaarar ha laga dayo qabiilada. aniga waa ku tukan jiray mos dhowr masaajid, laakiin asloona qabiil timiday maya kuma tukanayo. gurigayga iga ajir badanba, haddaan haweenaha gurigaygaaba inaa ku tukada ii haboonba. ragga waajib ku tahay inay masaajidka aadaan. ani qof dumaraan ahay, ilaahay meeshii aan ku tukada buu igaga aqbali. baytullaahi haddaan aado oon ku tuka ilaaho oo dee qabiil meeshii yaala dhibkeeday leedahay. marka siyaaran masaajidadeeda qabiil bay u dhisan yihiin. heer waxay socotaa ree masaajid hebel qabiil bay masaajidadii noqdeen. subxaan allah, hala iska daay, waa laysi ogyahee. ani waana hadlaa, runtana waan sheegaa. allah waan ka baqaa, waxaan ka bacay ee aanan jirinba. talabaa waxaa soo hadhay, hadda ka hore gabadh dhibaata ku dhacday, iyadoo qaylinayso bararanayso ooysa masaajidka abubakar aaday. fridaynay ahayd, bannaankaa loo soo wala baxay, weliba dumaraa soo baxay, ragguna way baxayeen. gabdhaa la socday gabadhaas. markaasaa gabadhihii baa qayliyay, gabadhan hala caawiyo, gabadhan waa sida, gabadhan waa kan, gabadhan way ooysaa, way qaracsan tahay, dhibaato aada xun bay ku sugan tahay. halkana lagaba soo boodayba, naayay tahay, naayay ahayd. war beydkii ilaahay baabad hor taagan tihiine goormeed qabiil xasuusateen? soomaali goormay xoroob? goorma waddan iyo dal dhisme? no, waa daalaysaan. hadda madaxweynead dooranaysaan, waa u sacabtumaysaan, waxaa hebel, waa hebel, waa hebelkeegii. waayahay, bal muddaanu siinaye barun ha caayina, ha aflagaadaynina. madaxweynaha maanta jeceshiin eedo u boodaysaan, ama sidan ahaada oo jeclaada, ama dee soomaaliya meel iskugu imaada. hadda madaxweynahan aad jeceshihiin eed u boqdhumanaysaan, madaxweyneha amba waan jeclay, ma aqoon buu uma lihiya, laakiin waxaan ka xumahay beri cayda iyo ceebta xunta ay gaadhaysa. car soomaaliya 4 bilood ama 2 bilood caydiina yaan la maqle, xumaantiina yaan la maqle. ininka markii ama aragtay aad israacdaan oo adduunku in raaci, qaxooti baad tihiin, dal ma lihidin, dadna ma lihidin, sidaasaad ku dhammaateen. how many years unbaad qoryo iskula taagantiin? how many years unbaad isxabadaynaysaan? imisaa ilmaa dhammaaday, imisaa hooyo dhammaatay, imisaa aabbo dhammaaday. wax aad ka naxaysaan ma lah. heer waxaad gaadhay intaad qaxooti maraykan ku timaadaan, diintiina aada lacag ku gadataan ood gaalo noqotaan. iimaankiyaaba iniga gubtaybe. goormaad gobonnimo heshaan? goormaad heer gaartan soomaaliya? waa markaad iskaashataan eed qof walba qofkiisa uu soo dhawaysto. horta soomaaliya intaasaan uga baxay. talabaad, aniga waxaan caawa inaan ka hadla rabo, waxaan ka hadlayaa mawduuca GYL, qabiilka gabooyahan ka hadlayaa. ninaa meesha riwaayad soo gali wuxuu dhahay hablaha gabooyaha ugu qurux badan. beenta maa walaa, amba gabadh gabooyaan ahay, gabadh gabooyaan ahay.
dadka aa weliba yastaan baan nahay dadka aa midabkooga takoortaan ayaan nahay waxaan aaminsanahay gabadh maanta qabiilada ka tirsan iyo ani haddii layskaaga ag joojiyo inayna xitaa kabahayga gaadhayn that what I believe so dadka fikradda xun aaminsanay weliba gabooyahan la hadlaya waana la yasaa maxaa lagu yasaa 9 bilood ku dhashay waa ku dhalat markuu dalkiisa hagaajisto uu dadkiisa hagaajisto markaasaa lagu yasi karaa nin dalkiisa iyo dadkiisiiba gubay oo isdhameeyey annaga dadka ugu dhibka yar baan nahay een qorina la joogsan cidnana xabadayn cidnana aan dilin war annaga ugu gabdho qurux badan annaga ugu rag fiican inta ilaahay abuuray uguna qurux badan qalanjooyinka annagay naga soo baxaan quruxda annagay naga soo baxaan wallaahi yaa ku dhaarto bilaahi yaa ku dhaartay haddii inta aan labiso aan banaankaa maro oo gabadha qabiilada ugu laandheeraysa maanta i raacdo wallaahi kabahaygaa feerina because I know who I am I know how much I'm beautiful my whole family aan ka dhashay waa loo istaagaa dad qurux badan baan nahay dad qalanjooyinaan nahay war raggiina markaadna aragtaan ayaa dhahdaa maasha allah gabadha quruxda badan gabadh rag qabiilkiina kamid ah hadduu guursado war yay ahayd bay ku leeyihiin yay ahayd yuu guursan lahaa gabadha shahaadada kula wadaagta oo diinta kula wadaagta oo diintii nebi maxamed haysata yuu guursaday gabadhan ma dadkaagii bay dishay ehelkaagii bay dhammaysay ma xoolahaagii bay dhacday magacay ka dhimanayaan fiiri allah waa midgaan bay ku leeyihin midigti iniga go'day oo maalmo sii qurma ilaaha inii baryee naag xun oo kabahaaga aan gaadhaynoo qashina aaba istagaanka midgaan yahaan baa ku oran ani markay saa itiraama taqaana walaa ka dhex baxaasa u dhantahayba boolshee kabahayga xitaa ma gaadho midgaanay ku leeday iyadoo injirtu ka yaacayso wallaahi bilaahi naag xunta ah ee xijaabka xidhan ee shaqada iska dhigaysa intaa laga soo duubo nayuuska waa midgaane bay tiraaha iyo anigu ma isku darajaan nahay naayaa dhagayso darajada lagu kala wan yahay waa diinta allah nagamana diin badiside diinta aad haysataanu haysanaa ashahaadada laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah atrahaan dhahnaa na awoodadna dheer tahay naa 9kaad ku dhalataan ku dhalanay adoo gaajoonayo oo safanku dabada ku tegay ayaan dad aadan gaadhayn oo dhididkooga cunaya war hadday biratumaan iyo hadday kabatolaanba dee irsaqa ilaahay meel walbu kaa geliyaa waa kuwanaa maraykan timay jaraan imisayna hebelo inaan laandheero timaha jara kuwiina maaha miyaa anagaaba shaqada iskale maxaad u samaysaan bal ii sheega shaqada gabooya iska lehe oo waabad nagu caydaana waay ininku timaha u jartaan waay dad badan oo maraykan xitaa ku yimid gabooyaan dalna male war anagu dalna male dad waan leenahay laakiin dal malihin runtu waxay tahay midab Soomaaliyay goormaad xoroobaysaan nafsigaad annaga naga gashan bay nahaya waligiin iyo aliina saasas kugu taagnaanaysaan because qabiilkiibu u socday inugu noqday erbad lagu maxaariyay wuxuu ku dhahaa mataqaana magaaladan ka imid special warkii midgaanka haya timaajara ahaa war inaad orinadeerka maanta maraykan timaa ku jaraye ma midgaan baa waa ina hebel Sooma kaasiyo ahaa markaa isweydii su'aasha war waxa weeye muddo joogi baa lagu caayaya war waxa lagu caayaya farsamadoodii war dhididkooda xalaasha ah ayaa lagu caayaya war diinta aad haysataan baanu haysanaa war ashahaadad ku ashaadataan baanu ku ashaadanaa war allihiini abuuraanna abuuray maxaan ini yeelay maxaan ini dhinnay maxaan nagu samaynay war maanta wiil cidiina hadduu gabadh ciddayada jeclaad war gabadhu maxay ku bees maxay yeeshay diintii bay la wadaagtaa waa qof islaana
وقف سيدا شادنيسا maxay qabtaa gabadhan ma ilbaalaada ma oofaleed inta gabdhood hadii la isku keenana iyada ugu qurux badan for example xaba dhiciba gabadh baa reerka wiilka ka helay waaba iskuursanaya waaba isjeclaan way iskuursanaya waxa laga yaabaa gabadha reerkooga dhan inaa la burburiyo oo la baabiyo shaqada Afrika ka jirta wallahi alcadiim shaqada Afrika ka jirta hadduu laakiin xabashi u guursado ama nin gaal oo kristiyaana oo soo muslima u guursado waxa lagu leeyahay uu soo islaamay gaal buu ahaan jiray lama dhahayo uu soo muslima markaas magac qabiil baa la siinay waa ree hebel baa la leeyahay ree hebel Allah dib badana magac baa la siinaya nasabkiisa waa la amaanay hadda xabashi buu ka yimid oo wuxuu rabo ka yimid oo ilaaw Senegal mu ahaado oo ilaaw wuxuu rabo mu ahaado فيريا مقع بالسينايا حللي الله باري قبيل هبل وايا وانكو قرت وصو مسلمة وايقش واركي مسلم كأها الدين تقول شيء قبيل كلها قبل دوضا وما أقلا ومتقام بكليهن ومتقام بكليهن اقرأ له هذا اوكي midgaankan muxuu ku yeelay midgaankan muxuu ka dhacay midgaankan yuu ka laayay Soomaaliye ina nabad inaga dhacda haba ka yaabina nafsigaad gurateena alla maxawil qorcad qorta laga gooyay oo intu gabadhiina hebel gursay reerkooga la baabiye wallahi nafsigu ma haro waxa laga yaabaa ninka ay leeyihiin waa midgaan gabadha u diideen inay qarcato oo wacel u dhasho nafsigu intuu jira feer war qofkan islaamka ah ee ashahaadanay ee walaalka ah maxaad ku nacday alla naagta ceel badana alla naagtaas ceel badana ilaah baan ku dhaartay haday naagta ama ano waaba midgaana way tir ما اسكو درج الله إلهه هالكا تاغن تايمان تاغناada والله بالله ku darto laba talaabo maadan qaadeen barta joogta kugu laqalaha istubidadiya uska gale iyadoo reebaadiye ah saw egtahay feere naya this is my real face qabiilkaada caayisana special ana ka dhashay naya haddaad afaaris soo gashana ana ku taag I wish meel aan joogay ina jooglay Mareykan badda waa kana maanta yaa wax igaga qaaday Afrika nagu guumeysanaay waa midgaan waa horta inta Afrika joogta lagu dhibay Mareykan laakiin inana ma dhibayso dhunana lagama badiyo danana lagama badiyo siday qaxootiga ku yimaano ku nahay fala 13 meedan baan isla nahay ma faad naagta itraahana waa isgalayna because fadlay dheer taama jiro talaba maba aaminsaniba nin baa ku yasaya yaa yeesay Mareykan da qofka aan shaqaysan baa midgaan leeyahay waxa ku soo haray ani su'aashan hala iiga jawaabo shaqada tima jaraha ya midgaan iyo midgaanka weydinkii hayay gabooya iska leh ininka xagad ka soo gashay waayo timaha u jirtaa waay waa hebel qabiilada ugu landheeraysan buu ka dhash waa timaha u jirtaa ileen matiin nin maaragtay midgaan oo langaabe ileen nin landheero hebel aad tahay حتى ما وجرت محاق تمتراد فرت واي سويدي بر سببته حيتها وحاطتك كو عايش انا هادنا ددكاغي فرتان oo dadkaaga ku faanaan oo beeshadaan oo waliba iyaga Mareykan joogo ku beeshadaan soo qalama timajara una anaga iska lahayn anagu ba timaha jana maxaad ku geey inay adina hebeloo deelaan dheeraad ahayde Allah war waxa landheera tahay malaha landheere waa ninka rabbigiisa ku xidhan waa ninka xariga Ilaahay haysta waa ninka 414 cadadka quraanka dhameeyay waxaanad ogaataa qof markii aad yasto dambiga ku raacaya ma og tahay qofkaasi dambiga uu soo sameeyay iyo wuxuu lahaayo dhan iyo kaagi ayu Allah subhanahu qaadir isku ka daraya
waana waajibkaaga waana jazahaaga markaa qof walaalkaa ah oo muslim ah oo kula diin ah oo kula darajo ah marka aa wax xun oo kelmad xun oo gubaysa aa ku tiraaho ilaahay adna waajibkaa ku marinaya ilaahay baa kaa jazaaysiinaya qofkii qof yasa war lama kala weyna war lama kala awood weyna war lama kala baabur weyna meeshan walaalo waa Mareykan afar dirgadood oo Afrika ama aha Mareykan la isma arko adduunweynaha maxay horumar ku gaadheen bal cadaanka inta u tagto qabiilkee tahay ku dhe wuxuu ku leeyahay I'm from Seattle Minneapolis intaas ma dheer Soomaali baad leedahay where are you from baabale aniga waxa wana habu taagan Soomaaliya oo in hebel baan hoyna cali baan hoyna maba weydiinin baya qabiil horumar kuma gaarsiinayo waa reebitaankaaga waa dilitaankaaga waa cudurkaaga oo dawo lahayn cudurka qabiil inigama dawoobayo Allah iniga caafiyo weligiin iyo aliin hadda sa ahaataan waa isku dhamaateen anaga feeriya dal malihin been maaha laakiin dad waan leenahay dadkayguna tafaraaraq baa ku kala dhacay qofo meel buu ka dhacay qofo meel buu aaday de qof walba dib baa ku dhacay qofku markuu dal leeyahay ayaa buu yiraahaa maxay ahaydey waayahay dalkaygii baan maanta wax u qabanaya annagu Soomaali baana xitaa magacii Soomaalinimo noomaba quudaysaanba Soma laakiin yaa iba inay baryaayade waa kana waa ku hadlaya waanahay alxamdulillah yaa dhufdhi yaa dhacdhi waxaan su'aalo kale waxaa dhibka iga dhaaf walaal dadkaasoo ana insha Allah hadhootole so iga raalahaada waxaa akhris baan galay dhiiga igu kacayo qof ka liita oo misna kaba haaga gaadhay ayaa kalmad xun walal ku dhahaya warwiil Soomaaliyeed maanta ani qabiil kasta inaan ka guursan karaa ogaa maanta wallahi Allah iga sareeya mana aaminsan qofna inuu imidabto kooraay qabiilka aad ku faanaysaa wallahi malkuma gaarsiinaa adun baa ku dhamaan hadda tira inay hebel baahna ilaahay subxaana qaadir muxuu rasuulka kaleey salaatu wasalaam qabiilka wiire isku aqoonsada laynima dhihin iskugu faara oo ana inay hebel oo ana ina maxay oo ana ina cali hadda ka hor baa liigu na shukriye na walaal waxa tira ma jartaan baanahay horta ma jartaan waa dadkiyagii waa walaalahay waanu jecel lahay intina jecel waanu jecel lahay intina nacabna waxa weeyaa waan ku jecel lahaa ma leena laakiin nacabna been ma fiicna intina nacab waan nacabnahay intina jecel waan jecel ana Allah ka baqana qofan ka baqanay male gabadha iga soo horbaxda ee walaaltinimo wanaag ii salaanta waa u salaamaya laakiin tay Aisha inta itir tobankeedaan dhahaya afka Ilaahay muxuu ii siiyay kartida Ilaahay muxuu ii siiyay inaan waxna iska dhigay waxna ku qabsado waxa la yiri ma jartaan baad sheegtay waxaan ku wala ma jartaan waa walaaladay waa dad aan wala dhalanay waa dad aan Soomaali wala nahay oo hadan sheegto maxaa ka macna laakiin yaa waxa ku weyn meesha saamaqlay horta waxaan dhageyso sheekada ma jartaan iyo qabiiladan iyo waxa la sheegayo miyaad maqash markaas tirhaa waa maqlay waxa la yidhi ciidiin waxa weeyaa reehebel waxaan ku dhageyso walaal macaani waa maqlaan sheekooyinka waa sheeko iga weyn baa ku yiri oo wax ka da'weyn halkeed ka gaadha waxaan ku dhahay horta waxaan ku soo koray qabiilka gabooye weliga ya Allahayna ma maqal qabiil kala tahay maanta unba iigu horeysa weligayna ma maqal markaasay ku tiri amba waa maqlo odayaal baa soo baxayo
odayaal baa sidan yidhi markaasaan horta wixii la yidhi waa la yidhi laakiin kolley ani waxaan ahan baan ahay dama been bala isku sheeg waxaa tahay unbaa tahay aniguna dadka waanu jecelna waa walaalahay wixiina la yidhaahana dawaay unbaan idhaahnaa laakiin kolley wixii ataa tahay been ma la isku sheegaya ani horta gabadh hawlaan ahay ninkii garanaya ay garanaya markan aftirsadana daarood baan galaa Soomaaliye meel bay nigama soo galaba anu waaba nacaaba daarood marka iyo sii gasho waaba iska reebaaba kuma jirtaa ilaa xisaabta waa ka reeba sabab uqdada ininkaan galiye naxliga ininkaan galiye war gabadha maanta qabiilkayga haddaad la sheekaysataan xitaa alla saad u jeceshiina quruxdeeda ma aragtay bismillaahi raxmaan raxiim sawaabta waa bureeq waa qalan waa ma amaanta laakiin markuu guur yimaado gabadhii la guursado ka kuugu xigay inaad arkaa kula war waa midkaan quruxdeeda maxaa ku tahay hadda isagii baaba igaadgaadaya markaasuu leeyahay waa midkaan yaa allah ininku laba kala daaya gabdhaha gabooyo waa jeceshii oo da markaad aragtaan quruxdeeda indhaha inaga qaada waa salashaa salalaa waa salalaa هستي فنان كوكله واصل ولا بين بركي اصل marka inuu gabdhaha gabooyo saa u jecel oo ka dabarooraya hatta aniga iska daayay qodada naxliga hadhow waxa leen waa midkaan magaca qabiilka asalka ee naxta nooma qoorsan anaga qabiilkay gabooya leeyahay bal aan diidno anagoo diidayna bal arka wallaahi baan ku dhaartay markan gabdhaha qayrkay aan raaco in waliba saaxiibadan nahay xidaabeen wallaahi ina ilma dhaleeymo moodo in la bisto in dhaqaaqo markaas walaal kuwa aan iba gaadhaynin oo la ilaahay oo hal mar shukr meesataay ma ku tiraaho salaanteeda u dhimanaya ahadhow la dhihi allah war gabadha qurux war waa midgaana buu kule no sodigi ooy gormada horta laba kala daaya ama sidan ogolaada ama saa ogolaada anagu manana gurwaayin manana gayaan waayin gayaanna waan leenahay waxna gursada waan leenahay hooyooyinkii wiilal bay noo dhaleen sad wiilal u leedihiin baan u leenahay sad gabdho u leedihiin baan u leenahay guur iyo gayaan midna maanaan waayin waanu haysanaa waanu leenahay wanaga guursana wanaga iska dhanla wanaga is aroosna war inta samaysaa in ka badan mooyo waanu samaysanaa soo run ahaanteena ani ma jecel horta reer qabiil inaan noqdo laakiin dhiiga waxa igu kicisay ee dacarta igu kicisay videogaas waan ka gubtay waxay tiraa ma taqaanaa waaba midgaana bay tiraha xijaabkii baa ugu jira xijaabku kugu oolol ilaahan kuu barye diinta islaamka waxaad ka haysataan jireen ilaahana waxaa kaaga baryay maalinta aad dhimato inaad tiraa yaa laytanii kuntum turaaba sida gaalada inaad tiraa ilaahay oo carro maad iga dhigtidaa adoo carro lagaa abuuray ayaad dhihi doontaa ilaah oo carro maa iga dhigtidaa inta aa qof walaalkaa yasaysana weligaa faa'iido ma helaysid anoo bay tiri ma ninka midgaanka ah hadda fiiriyaa wallaahi si carabka ugu nabaysa ah warba hadday gabadh qurux badan oo nicaayi lahayd maciil baan qabi lahaa foolxumada kaga dartay ina indhalaadaad moosa way haabhaabsanaysaa ilaah baa igu og way haabhaabsanaysaa marka nooca aad tahay inaad nacam aad qof ku caydo oo afkaaga maarteedan xitaa waxa laga yaabaa aadan soo cadayan waxa laga yaabaa hadda inayna qadaynayno quraacan ilaah baa iga sareey oo ina cashayni markaas qof bila aadan ah oo kabiis ayna gaadhan caayis halkan joogaa dheer halka aan joogaa dheer ilaah baa igu say kalmada allah xanuun badanaa الله حنون بدنا ولا هالكن جوغي نادن كلمة تراده أديك دم ولا حل إلا ما حد المرة ما هالكن جوغي ما كلمة ترا حتى ولا كحد دوبا ينقراع لها
dadku kugu soo caan bixinaya midda labaad nimanka nayuuska iyo waxa duubayaan la hadlayaa semberi haddaad dee dadka gabooya inaad ka hadashaan oo de waxyaalowga soo bandhigtaan aad rabtaan annaga dadna aflagaadaynaya ama na xumaynaya ha noo soo bandhigina waad naga qaldantihiine waa inaad la hadashaa qofka adoo hortaagan oo runta u sheegtaa oo tiraa fadligeed dheer tahay waxa weeyaan dadka waxaan la hadlaya semberi websaydada soo geliya yaa weeyaan af soomaali maxaa lagu yidhaahaa kuwa niyuuska qaada waxa weeyaan inaad nacam annaga qof nacagtaa garanaya oo dhaqan nacam qabiilkayga nagu caayaya oo reebaadiye ah reebaadi waaba isdhaamaani taa meel laga keena maba garanaaye wallaahi bilaahi gaajo darteed way haabhaabsanaysa xitaa wax mayna arkaynin aniga midda labaad waxaan diidayaa raggiina nayuuska qaaday ani inama badanoo meesha iigu jira oo maaragtay kuwa nayuuska qaada ah so please annaga qofna caayaya ama na agtagaraynaya ama dhaqankayaga iyo culturekayaga wax ka sheegaya please hanoo soo gudbinina naagta markaa adiga aad ka duubaysa tv-ga aad waraysanayso kelmadda maad adiga weydiisada waad ka qaaday waad qaldan tahay adi laftarkaaga aad boqol weyn baa ku dhaqmanaysaa dadka ku taageerayaad ka mid tahay midda labaad ragga aad dadka u waraysta ama faafiyo dhibaatooyinkooga wayba kala wanaagsan yihiinba ine markii sheekada qabiil gaadho dad badan baa soo kacaya qabiilka ay naagta xuneen maaragtay gaajada ku naban tahay ay ka hadlaysana anoo miidhan baa ka dhashay halkan joogaa dheeray wallaahi kamay hadasheen war gabooyo muxuyna yaala gabooyo muxuynii dhima war dadkiinana inaga maanaan layn soomaali ma anaga qarqarxina ma anaga burburina nafsigayagii ayna qabta wakaa burbura ee maaragtay eber ininkii aqooniyo iskula taagan ininka heshiiya car soomaaliya oo taasa xorowdo carhay heshiiya tiisa aabayaalaad tu kalana ku dara waxaa layidhi ninka hooyadiis qalay maanuu hadhi seexin habarartiin baad qalqashana ma anagaad hadhna seexinaysaan waabad noo dhammaysaanbe gormaad annaga noo danaynaysaa gabooyi qori ma qaato gabooyi dad ma laayo waa miskiinka haddaad saaxiib la noqotina saaxiibunbu kula noqon haddaad iska daysana waa dadka ugu dhibiya carbal maqla gabooyaa wax laaya gabooyaa wax dila gabooy waxaad maqlin dadkaasaa la dilayaa dadkaasba imise hadda africa dhib ku haysta war haddii maanta wiil ree hebel oo ciddayada ah gabadh ciddiinaan la baxo finally waxaaba la joogsanaa inaa gabadhii wiilka la dilo war diinta tiri intee ka timiday midda laba culumadaan la hadlayaa culumo wallaahi culumada anaa gelaya hore looma gelina culumada waxaan la hadlayaa ama sheekh ha noqdaan ama shariif ha noqdaan diintaba waad faafisaan waxa wanaagsanba waad faafisaan maxaad u faafi weydaan qabiilada la yasayo maxaad uga hadli weydaan diintiina ilaahay soo iniga aqbala diintu waxay kuwa diinta dadka u sheegaa waa ininka kuwa wanaagga dadka u sheega waa culumada kuwa dadka wanaagga fariima waa culumada culumo allah yaa allah maxaa inagu dhacay waar culumada waaweynaa ugu caansaneen aqaano kama hadlaan culumo allah cuqdad baan ininkaba inaga qabnaa midda labaa culumada waxaan weydiinayaa bilis kitaabka yidhi ha isguursanina noo soo saara anagoo kale guurba kama rabnee anaga kuwa guurkaygii baaba naga batay laakiin culumo allah diintaba waad faafisaan oo waxa wanaagsanba waad faafisaan oo dadkiina waxa wanaagsanba waad u sheegtaan annaga iyo iyagabe waan inima sinin marka run laga hadlo because annaga markii nala yasayo ma tiraadaan dadka ha hayasina ba qofka noo soo baxa ee ka hadla ee noo dhiidhiiriya waa ayo culumo adduunka waad joogtaan aakharana waa la tegi ilaahay wanaagga faafi buu ku yidhi sheekh baad tahay waa tujini imaan baad tahay sheekho bale feerisaano ekaay ma calaamo baa wejiga igaga taala ma calaamo waxaa iga taala gabadhaas waa ciddaas ayaan la guursanin ma ilaahay baa diintiisa ku yidhi gabadha ayaan la guursanin
sheekhow culumo ma only sheekh kama hadlayo culumo dhan baan ka hadlaya annaga calaamada nagu taale madaxa noo suro waa calaamadee sheekh bal ii sheeg diinta islaamka iyo asaami islaamka igama muuqato quraan waan bartay sheekh diinta waan aqaanaa xalaashi xaaraanta sidaad u kala taqaanaa u kala aqaanaa diinta waad iga badisaa because dadkaad wacdidaa wanaagaad u sheegtaa laakiin dadka kuma wacdidi dadkiina walaalaha ah eed midabta koortaan iska daaya jaahilnimo waxay dadkiinu ka qabaan waxay ku leeyihiin ma anoo waaba midgaane culumo alla adduunka meel walbaad uga faaftaa show baan ilii qabta aad dadka ku wacdidaan dad baa inii soo imaada inii dhegaysta ilaahay sidan buu yidhi ilaahay war wanda intaad show qabateen annaga mad nagaga hadasheen annaga qabiilka la agtaagareeyo ma ka hadasheen culumo lambar 1 ininka inaga bilaabmaa ininkuna inagu dhammaada ani culumadan la hadlaaya culumo cugdad baadna geliseen diinta waad faafisaan wanaagga waad faafisaan cabsashada alla waad faafisaan laakiin dadkayga la midabta kooraayo ma faafisiin raggayaga la dilaayo ee qabiil ahaan lagu dilaayo kama hadashaan culumo hadday dad cilma qabi lahayn maanta inta xitaa afrika iga joogta day maraykan ii joog lahaayeen ee qabiilka gabooyo ku aftirsanaya wallaahi bilaa cilma qabeen waxaan kasii ooyaya wiilka hargeysa jooga inta meel loo galay koono walba lagu dhuftay hadduu nina isaaqa ahaan lahaa ama nin ciddaa ka tirsan ahaan lahaa qofna nabarada uma geysan lahayn wallaahi qofna ma dili lahayn because waa magacaa lagu dilayaa qabiilkaa lagu dilayaa waa ninka qudha ee dowladda ku jira Somaliland waa ninka qudha ee qabiilka uga jira nasiibu waleeya hadduuna dhimanba lagama hadle ani laakiin waa ka gubtay waa ka xumaaday waa qof walaalkay ah waa qof walaalkay waa qof jiirkayga ah waa qof dhiigayga ah dhibkiisa ma ogoli dhaawiciisana ma ogoli isagoo walaalkay ah war nin kaloo ciddu doona ha ahaado qabiilku doona ha ahaado qabiilku doona ha ahaado ciddu doona ha ahaado horteeda laguma dilaayo because waa Soomaali waa walaalkay oo kale culumoy diintaba waad faafisaane annaga dhibaatadana lagu hayo maxaad u faafin weydaan maxaad uga hadli weysaan 24 hours wacdigiinaan dhegaystaa alla ka cabsigiinaan dhegaystaad noo sheegtaan marka aadna wacdiyaysaan dhiiggaana istaaga xaadaana joogsata aniga dhan baa bedelma waan ooyaa xadiiskaba sida fiican aad u faafinaysaan dadka walaalihiina dhibka haysta maxaad u faafin weydaan cid kale maaha gurigaada shaqo bilaabantaa maxaa been la iskugu sheegaa waxaa laga yaabaa ilmo addasho haddii ilmo kale istagaalaan oo cidda ah inuu kelmadaa ku dhahayo waana hubaal wuuna ku wayna dhacday culumo waa inaad hadashaan culumaanisaan way kahay qofku markuu soo muslimo waa u sacabtumtaa waa faanisaan annagoo dadkiina ah oo diintiina haysana oo dhaqankiina haysana oo ashaadadeena isku mid nahay oo ummadii nabi maxamed aan wala nahay oo ummadii maxamed aan wala nahay maxaa dhacay calaamada nagu taala maxay tahay calaamada nagu taala maxay tahay yaa rabbi yaa raxmaan ilaah cazaa wajallaha ah xaqa soo saaray Soomaaliya 24 sano 25 sano ay ku socotaa I don't know madaxweynaha ma kii 10 ba mise waa kii 30 ma aqaani markaad qabiil aad iska daysaan Soomaaliye eed waliba annaga dadkayga daysaan ayaad inii hagaagaysaa
ayay arrin inii hirgalaysaa. laakiin inta sidantiin wax inii hirgalaya ma laha. intaad nasabkayga caayaysaan wax inii hirgalaya ma laha. because nafsiga yaga ina qabanaya. dad masaakiinaan nahay. dad dhab badan ma nihin. dad wax qasa ma nihin. dad wax dila ma nihin. dad wax dhaca ma nihin. dad tuugaa ma nihin. annagu xoolahaan qallaa, kabahaanu tollaa, birtaanu tunnaa. intaaba Afrika waan ku samayn jirnay. special ani familka aan ka dhashay hooyada iyo aabbahay waxaan ku koray raaxoon baa ku koray. dad hanti iskale bay ahaayeen. gabooye dee inikuba waad leedihin masaakiin. saatiinun baan nahay. masaakiinna waan leenahay. indheragsanna waan leenahay. saad inikuna masaakiin u leedihiin, indheragsanna aad u leedihiin baanu leenahay. ani dulqaadkaa igu yaraaday. in allah maca saabiriin. waanu samraynaa. diinta aad dhigataan iyo qur-aankaba alxamdulilah waan naqaanaa. xalaasha aad ku dhalateen baanu ku wala dhalanay. meherkaad ku dhalateen baanu ku wala dhalanay. maraykan baa la yimiday. how many oo in hebeloo la garanayaa maanta timaha jara oo cid walba qabiil walba ka dhashay. hay kaas muxuu noqon waaya ciddayada? ma magaca ka bedeshaan? inay annagaa shaqadaa iska leh. culumooy, culumo allah, bliis arrinkan ka hadla. arrinkan ani wuu idhibayaa. in badan baan la aamusnaa. in badan baan la tacaayay. in badanay calooshii gubanaysay. xorriyaddeedaan maanta ku hadlayaa. arrinkanna ani waalidkii waan ka qariyo umaan sheegin. hooyada iyo aabbahay waa dad culumo diina. waa dad helidiin ah. waa dad diin leh. waa dad iimaan leh. wallaahi baan ku dhaartay oo bilaahi aan ku dhaartay markaan dadka dariskayga arko ee weliba qabiilada karaa iyo markaan arko waalidaday nacmanaga isan diin iyo wanaag u leenahay iyo dadka qabiilada dhaadheer ka dhashay say ay yihiin isku mid ma nihin. imisa gabadh ree hebel oo la garanayo marka Facebook inta soo galaan waxay rabaan sameeya. waad aragteen qabiil hebel ay ka dhalatay maxay isla qaaqaawanaysaa? xabanaanka isku soo dhigaysa. annagoo dad islaan oo walaalihiin ah oon dhib inagu hayn, oon rafaad inagu hayn, oon xumaan inagu hayn, oon waxba inagu hayn ayada waxyaalahaad nagu samaysaan. qisada iyo xanuunka badan wiilka yar ee magaalada Boorame gabadha kala baxay ee heer waxaa loo gaaray in xitaa isaga la dilo. familkiisa lala cararay. maxaan ini yeelay? maxaan ini dhinnay? ani dadka Afrika iga jiraan u ooyaya. walaalahayda Afrika jiraan u ooyaya. dhibaatada lagu hayo. Soomaaliya inta aasaatiidin weligiin guul ma gaadhaysaan. weligiin Soomaaliyana ma xoroobayso. waad arkaysaan. Soomaaliya goormay xoroobi? marka annaga aad naga daysaan qabiilka iyo qurunka ayaad xoroobaysaan. fadli aadna dheertiina ma jirto. ajir aadna dheertiina ma jirto. wiilashiina wayna jecel yihiin. hadday berri guursadaan waxaad leediin naag midgaanu guursaday. anisaan u ekahay. mayl baan laayahay, moofaan laayahay, macluumad baa igu taala wejiga. idhahaysa naagtaas waa qabiilka. no. diinta uu leeyahaan leeyahay. ashahaadada maxamediyaad u haystaan haystaa. sabab inta inka badan ma si hadli karo tihiin. laakiin dhahna laga daayo. culimadana waxaan leeyahay arrinka ha laga hadlo. arrinka ha laga hadlo. culumo ha laga hadlo. culimada waaweyn ani magacyadiina halkan sheekhiya kama sheegaayo. sharafaa iga mudan tihiin. waani xushmadayna intaan aabbahay xushmadeeyo oo kale. aabbahay waan jeclay hooyadiina waan jeclay. labadaas waa saaxiibaday. saaxiib kale ani ma lihi. ani hooyaday ay saaxiiba, aabbahay ay saaxiiba. saaxiib dhan ma lihi. waxaan ogahay waalidka inuu the best yahay. waxaa kaloo indiiga tagaya anuu weliba ciddaas ah
diinta aan leeyahay gabadh qabiiladaas ah inayna lahayn baa ogahay. diinta aad ku dhalateen aan ku dhashay, ashaadada islaamkaad haysataan baan haystaa. dadkayga aad dhibaysaan ee midabta koraysaan hanalaga daayo, hanalaga daayo, hanalaga daayo. midda labaad, wiilka waxaan leeyahay walaalo macaano, wiilka Hargeysa jooga, please please dadkaa ka dhex bax. jigjiga iska tag, jigjiga iska tag. nin intuu qol kuu galo kuma dilaayo wallaahi. jigjiga iska tag, markaashaasi dadkaagii dalkaaga ku badan yahay. jigjiga iska tag. jigjiga qabiil aan annaga ka dhalanay loogumana hanjabo, waxna lama dhaho. waa halka ugu awooda badan nahay haddaan qabiilka aan nahay. marka Hargeysana meesha aad degantiin daami baaba layidhahaaba. daami iyo balaayada maxaaba ini dejiiba, because qofka hadduu miskiin yahay meel walbuu degaa. awish inaan lacag lahaa inta baahi haysata ee gabooyo dhan baan wallaahi siin lahaa oo dal u yeeli lahaa haddaan awood leeyahay. maraykan hadduu iga aqbali lahaa, dadkayga ii kaan baan oran lahaa. ee dhibka lagu hayo, ee la midabta kooro, ee la dilo, ee wixii la rabo lagu sameeyo, ee gabdhahooga inta la guursado la dafiro, wiilashooguna hadday gabdho kala guursadaan la dilo, eelkiisa la dilo. awish haddana yaaba iga dhigade. laakiin ilaahay baan anaga iska sugaynaa. alxamdulilah waa ku samraynaa. in allaha macal saabiriin. samirka allah aanu haysanayna. marka dhib walba oo Soomaali ay samaysaan maanta dhisto ini haysta, dhibaato kasto ini haysata, Soomaali waxa ka taagan waa u jeedaan. wax kale ma aha, wax kale ma aha. hatta haddaan gabdho saaxiibo la noqdo oo isku dhacno, galaashada qabiilkayga caaya. qabiilkayga muxuu qabaa? ma cudur baan qabnaa? cudur aan dadka maaragtay qabadsiinayno. cuduraa ila laysqabadsiiyaaye, qabiilkayga cudur laysqabadsiinayu noqdaan u malaynaa. soma ya allah. iga raali ahaada. yaa rabbi yaa raxmaan. ani caawa waan hadlay. ani wixii af Soomaali ii soo qora ma fahmaayo, iga raali ahaada. af Soomaali qofka ii soo qora ani ma fahmaayo, iga raali ahaada. aniga caawa waan ka xumaaday videoga aan fiirsaday, because kelmadaasaa meel iga gaadhay ay ku celinaysa, carabka ku nabayso. waxay tiraa mataqaana waaba midgaani. wallaahi alcadiim rabbi raxmaankaa kaa jaraaya maalin aan maanta ahayn, insha allah biidnillaahi kariim. culumooy maanta waa adduunyo, beri waa aakharo. dadku galad maaha, mar qura wala guri maayaan. rabbigiin intaad ka baqdaan, dadka walaalihiin ee ashahaadada inila wadaaga, ee diinta maxamediyad inila wadaaga, ee la midabta kooraayo. yaa rabbi yaa raxmaan. ilaa waa ijeedaa habeen badh weeyaan, amase subax weeyaan. habeen badh maa subax weeyaan. ani shaqaa ka soo baxay, videogaasaa i gubay. yaa rabbi yaa raxmaan, ilaa dadka ka jazaa'isay. qofka qof walaalkii midabta koorana jazaa'igiisa rabbigaa siinaaya. horta maanta qurbaaba la joogaaba. inta qurbo joogta waa u dhacantay. ani dadka aan kasii dhimanaya waa dadka Afrika ku nool, because dhibaatada Afrikaan xasuustaa. dadkayga sidii loo gali jiraan xasuustaa. hadda goora waxaa dhacday wiilka faamilkayga ka mid ah ayaa gabadh qabiilada magaalada aan ku dhashay een ku soo koray ka mid ah ayuu guursaday. wallaahi sidii loo gali jiray, hooyadiis sidii loo tumaayey way indhabeeshay. wallaahi way indhabeeshay, damay noqotay. wax kalena ma aha, ee waxay weeyaan nacam wiilkooga ayaa gabadh ciddaasa guursaday.
faamila kamidana gabdhoog waa xumaadeen wacelay dhaleen wallaahi bilaahi wacelay dhaleen way ku jiraan reer qabarbax wayna garanayaan they knows that wallaahi bilaahi wacelay dhaleen qaar of them markay ilmahaasaa u dhaleen wallaahi cunay qabta way baktiyeen waa ilmi wecelkaaya la dhalay halku joogaa lagu baktiye taariikhdu ma hadho storigu ma hadho annaga qabiilka aan ka dhalanay qabiil awood yar baan ahayn magaaladana umaanaan dhalan eelkaygoo la dilaayo oo la jiidayo wixii la rabo lagu samaynayo annaga kamaanaan dhici karayn because awoodeeda maanaan lahayn haddaan reerkaa u heelinana dhibaatadana soo gaadhaysaan ognahay iyagoo nala dhashay nasiib darro sidii loo dilaayay ayay anaareeda maalin u baxday waa laga kaxeeyey nasiibtaasa u yeeshan ilaaha uga hiiliye soomaaliya nafsigaad gasha wallaahi nigama dhammaanayo wiil cidayadaa marku gabadh qabiilkiinaa guursado dhibkaa u geysataan wallaahi bilaahi tallaahi nigama hadhaayo ilaahaa imaqla reerkaas sidii loo galaa xasuustaa gabadha uu guursaday wiilkaana ilmaha ay dhashay wallaahi quruxdooda haddaa aragto waa lagu sheekaysan jiray how much they beautiful laakiin gabadhaa gacana u taagay gabadh wanaagsan bay ahayd maasha allah gabadhaa gabadh aada u fiican bay ahayd gabadh wanaagsan bay ahayd wallaahi wax kasta oo dhacay tiri wallaahi wa bilaahi diinta iga celinaysa halkay ku taala halay way ka gooday reerkoogii good job walaa because shaqo fiicana qabatay ilaahay baana ku taageeray laakiin nafsigu ma hadho mar ay noqotaba uu soo degdegaa waxaa la dhahay nafsiga awal hore diinkaa sigay laakiin hadda xaadka cirka maraayaa wada soomaaliyana guulaa rajeynaysaa goormaa guul gaadhaysaa waa marka cudurka beerka iniiga yaalla aad iska daysaan waa marka qof walaalkayna oo ashahaadanayo diinta inila wadaagaya aad ka daysaan kelmadda xun halkee heer ka gaadhaysaan heer aad gaadhaan ma jirto mana gaadhi doontaan inta aad saatii wallaahi ma gaadhaysaan annaga cugdadaadna geliseen beerkay nooga taallaa mana iloobayno inta gabadh aad naga dishay inta aad wiil naga dishay annaga qabiilka ugu dhibka yar baan nahay tuugana ma nihin dadna ma layno xabad iyo qorina ma qaadano waxaan samayna ma laha dad masaakiinaan nahay dariska qofka nala ah ma dhibno dad dambi yar baan nahay ininkana waad dhammayseen walaa hooyo walaa aabbo cid aad danaynaysaan ma laha hadalkiyaa iga batay because cuqdad markii aad soo xasuusato kugu kackacaysaa marka soomaali annaga dhibaatada noo geysateen ma iloobi doono mid aan iloobi doonana ma aha heerka aan ku sugannahayna ininkaana gaadhsiiyey maanta haddii wiil cid kale aan la sheekaysa isidhaaho waxaa ogahay inuu igu ciyaarayaabaan aaminsanahay xitaa hadduu i guursado uu xalaashayda noqdo kuma qanacsani sababta ayaa keenay ininkaa keenay si kasta haddaan u jeclahay saan ku aaminaa way adag tahay waxaan uga aaminaa badanay ka ila dhashay
kan waxaan aaminsana waa nin shisheeyaan leeyahay runtu markaa waxay tahay Soomaali intaad sidan tidiin lagama yaabana inaad heer gaadhaan waa habeenkii xalaya tagay Soomaaliya imisa sanay sidan tahay Soomaaliya maxaa ku dhacay Soomaaliya dadkii Soomaalida ahaa ee inila dhashay walaaladiin ahaa waa annaga eed waxa xun nagu sheegaysaan eedna goyseen san ehelkiina iyo qaraabadiina soo dhamaynay waa isku sacabtumaysaan waad ku faraxsantihiin dalku gormuynii hagaaga inuu dal u dhismay sugayaan inuu dal u hagaagay sugayaan ilaaha weynii samayn karaa laakiin annaga nafsigaad naga gasheen intuu iniiga hadha halku iniiga hadha garabka istaabanaya maano ina hebel ah waxaan ka yaabaa marka qaarkood inay gacantu baxdo buf in gacantuba baxdan ka yaaba waxay u badan yihiin inay madaxa gilgilaan maano ina hebela iyo banaam hadda laabtay ku qaraacaya sida xabashide Soomaali heer ma gaaraysaa intaad ku jirtaan caynkaas naftiinaad u nooshihiin naf kale uma noolidinba ininkunba isku nool gadhiso kasoo libiso nafteeda mooye naf kaleba uma nooli wixiina dhanna waa angad balaay waxba kama jiraan madaxweyne hadda u sacabtumanaysaa madaxweynaha ceebta kusoo dhici doonta iyo fadaxadda la yaabanahay madaxweyne ilaahay horta ha kugu asturo xilkan aad qabanayso qof xunna uma eegka qof wanaagsan aad u eegtay maasha allah weliba qof waxaa u eegtahay aqoon leh been ma fiicno qofku waxaa qofka waa qiyaasaa qof aqoon laad u eegtahay I hope inaad dalka wax ka bedesho laakiin madaxweyne ma isweydiisay goorma dalka wax laga bedela bedelkay Soomaaliya u baahan tahay Soomaali ama Soomaaliland Soomaaliya dhan isku dar bedelka u baahan ma taqaana ada waxaad haysataa hub laga dhigo iyo wax maya fikradan aaminsanaa ku sheegaya waa cudurka qabiilha laga saaro markaas Soomaali xoroobaysa wadabadooda waa inta bari waxaa imanaysaa nin qabiil hebel ayaa kursigii Soomaaliya ku fadhiya adi qabiil aad kulli ma aqaan qabiil aad ka soo jeedina aqoonba uma lihiba laakiin annaga dhibaatadayada qabiilkayga markii laga daayo waliba khaasan annaga qabiilka aan nahay markaas aad xoroobaysaan inta ka horeysana lagama yaabana inaad xoroowdaan hadalkii iga dhamaad inta badan ma seexad karo inaan seexdo weeyaan shaqan bari leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiin waan idin salaamaya dhibaatada hana laga daayo kale mawduucayga insha Allah uu sii socon doona aan wax badan aan ka hadlaa caawa ina wallahi qabiil ka hadla wallahi alcadiim marabin wallahi alcadiim الله عز وجل مقلاي والله العظيم إن قبيل كهذا والله مربي be honesty but not ما عرفتي the way أهليسي like I feel something like I wish نكتا إن هرتاجنا لها I swear to God I wish إن هرتاجنا لها but nothing marka insha Allah anaga dhibaatadayada aan nagu haystaan horta ani caaw ka hadlo wallahi ani awal hor waxaan ka hadli jiray sidee mar wallo noqda sida carbul gabadha Soomaaliyeed inagu jirta ee ani ka hor marwanimo ka haday carwa gabadhe way jiraan naga wax badan ka hadla most of the breath ay ka hadla maxay tahay ma taqaana qolka hurdaday ka hadla waa markii marwo ka hadlaysaya سررت كلا no I'm not talking about that waxa ani kama hadle doono dhaqankii baa garanaya oo xalaashi xaraanti baa garanayna for example wax yar ay siinaya dadka ka hadlaya in maxay aheeday qolka hurdada sarartiya waxa ka hadlaya for example okay xawayaanka banaanka iskuma qabsadaan yes or no
حويانك سو بناك اسكو ما قبصدان او ارون كير سو waxay rabaan soo xawayaan ma aha ha maxaa ku soo haray ilaaha subxaana qaadir ah muxuu guryaha noo siiyay muxuu nooga dhigi waayay sida xawayaankaas oo kale so ilaahay wiina asturay inaad adigana is asturto weeyaan asturaadu rabbi ku asturay miyaa banaanka soo dhigaysaa war guriga waxaana loo siiyey albaab kale waa xishood waa asturnaan waa iimaan markaas intay naag meel soo fadhiisato ee wixii soo shaac dhigaysaa ee ka hadlaysaa yaa allah waxaasoo kale gabadhaas waa qabiil waaweyn baaba lagu sheegayay waryaa waaba yaaba tii gabooyaaba ka hadlaysid wax wanaagsan feere waxa u kala dhexeeya anigii ayisaysaa waxa wanaagsan ka hadlaya gabadhiina qabiil hebel leh baataajaga ka sheekaynaysa iyo waxa loo joogay subxaan ya cali ani gabdhaha aan ka hadlayo qof aan magaceega sheegaya malaha mana sheegi doono laakiin hadalkayga sarbeeb baa u dhiibaya ninkii fahmay iyo ninka fahmay special gabdhaha ka hadla waxyaalaha hurdada ah mamnuuc weeyaan wax kala ka hadal oo wanaagsan hooyada iyo aabaha say kugu dhaleen baad ka sheekaynaysaa waa foolxumo isku xisho adi marka bari lagu guursado maxaa sameeyay lacala xitaa hadii lagu qabo ma dadka kale ay arkaba dhiisaan wax u sameeyo dadka marka adi sameeyeen dadka sameeya ha dhihin waxa dadka uga sheekaynaysa inaad halba ka aqoonin baa laga yaabaa oo leedahay dadku unaad ku soo maaragtay aad marsiisida aad ka gadid maya waa qaldantaa ilaa ku ceebeynaya rabbi raxmaana wuxuu ku yidhi ilaahay ceebtaada astur anna waa ku asture taa intaasaan uga baxay isku xishooda leeyahay dumarka ka hadla qaybta reerka ama qaybta qolka xishooda iimaankiina allah ay nii celiyo waa iimaankii baa inaga tagay iimaanka hadduu naga tagana waa dhibkeeda ilaahow iimaanka ha naga qaadin baa lagu ducaystaa ilaaha waxaan iniga baryayaa inuu iimaanku inaga tagiyo maxaa kaloo inii soo hadhay anaga dadka midabta korayseen baan nahay ma dhahay diinta waan inaga badinaa saad ininku jaahil u leedihiin baan jaahil u leenahay saad u leedihiin dad diin leh ayaan u leenahay dan diin leh saad diinta u taqaanaan ayaan anaguna u naqaanaa saad culimo u leedihiin baan anagu culimo u leenahay ani aabaha waa xaafid alquraan waa boqolsoon salaad kama tagto aabaha waa sida dal culimaan ka soo jeeda dad badanoo i garanayaa jira inaan ina shaq xasan aniga ahay okay ininku waad leediin dad sidayadoo kale ah soo ma dad annaga lamida oo waalidiinteedoo kale aad leedihiin waalidadu waa fiican yihiin way wanaagsan yihiin ani waalid mana caayo waalidna xumaan igama geeyo laakiin waxaan diidanahay midabta koorka waxaan diidanahay aflagaadada waxaan diidanahay ciilka waxaan diidanahay cuqdada aadna geliseen marka Soomaaliye walaa wixii af Soomaali ii soo qoro iga raali ahaada ani xabad af Soomaali ma akhrin karo total allahay ka alla af Soomaali dhan ani ma akhrin kare mana dhahay ani Ingiriis baan aqaanaa waa laga yaabaa hal iyo laba inaan kiciyo because adreeskaan ku bartaya waa xariifad ma ihee haadi iska dhig marka aniga waxaan diidanahay midabta koorka midda laba GYL isku duubnaada dhaafa hadallada faraha badan dhaafa kala leexleexashadan badan ha noqodina qabiil labaad inaan nagu soo saartaan tartiib qabiilka taataay isku duubnaada isku jira dad istirsada ahaada dad iska warhaya ahaada waxaan leenahay dhalinyar badan qabiilka GYL waa qabiilka gabooye
وقبيلك أترى مدقها ما فهمتين مدقتي إني قاضي أو شحردي نبلوا ربي إني قبضي مركا ما أترى هبا موسكو كاغو آمين يا الله إله إني قبري كلمة إمام بدي كرتين با waxaan leeyahay GYL isku duubnaada dad isku jira ahaada mid laba hawlo badanoo jira soo baxa ka hadla qabiilkiina maxay nagu dhacay nin walba qabiilkiisu u dagaalamaya anaga yaana noqoyo qabiilkii u dagaalamaya xabadaha anaga xabad uma dagaalamayno hal ismariya uma dagaalamayno laakiin waxaan u dagaalamayna dadkayga wadanka jooga Afrika dhibka halaga daayo midabta koorka halaga daayo horta naagta Mareykan joogta ee cidaas ah cid ku midabta kooraysan jirin cid wax ka qaadaysan jirin freedom in America joogta I can do whatever I do ba taagan tahay Mareykan hadda joogto qof wax ka qaaday ma jirto Allah laakiin xasuusno ilaaha subxaana qaadir wax ka qaadaya qof xaar iyo kaadile oo adigoo kale wax ka ma qaaday hadday dagaal timaadana waa iska hortagaysan naagta kuugu timaadana neen waan wana taqaan Afrika lama joogaya naagta dhulka isdhigay aday ku taala naagta afaaraga soo gashay qabiilka ka hadasho halka joogto ku dhagaan ku idhay mid labaad anaga dadkan u ooyay waa dadka Afrika jooga ee rafaad ku haysto ee qabiilka lagu midabta kooraayo ee la silcinayo ee awlaadooda ikhtiyaarka loo diiday jacaylku waa musiibo hadduu qof jacayl galana si uga baxa way adagta jacaylku ma laha indho jacaylku ma leh calaamad jacaylku ma laha wax aan ma aragtay qofka aad leedahay waa wax kale jacaylku waa wax Ilaahay keeno waa dabeel eebe mar ay ku taabatay iyo mar ay kugu dheehatay iyo mar ay ku gashay ma garanayso gabadh gabooye haddii wiil reer hebel jeclaado oo 12 maanta un reerkooga alla midgaan buu jeclaaday alla tiimidka Allah waxa laga yaabaa hooyada saalahay gabadhaad inay halka ku gabowdo ama wiilkaagu halka ku gaboobo for example gabadh iyo wiil isjecel gabadha ay cideeda ka dhalatay wiilkuna cidaada ka dhashay oo wiilkaasi gabadha aad u jecel yahay gabadhana aad u jeceshahay oo laakiin reerkii la marin laaya wax kalena looma marin la waa kelmadda qabiil waa ga'da baaba laga dhimanaya waa gabooyada hadii la maqlaabo tintaaba istaagtaba yurkub marka gabadhaada wiilkaaga hadaad gabadha u diido wiilkaaga waxa ka dayda inuu deg waayo ina wax walba adigu nacabto mar walba sameeyo because nafsi baa haya haduu hadalkaaga qaato gabadh cidaas aad u diiday soma nafsigiya ku qabanay ama waxa laga yaabaa wiilkaaga inuu gabadh soo xumeeyo oo ilma aan xariga islaamkaba ku dhalan kadinka lagaaga soo galiyo wax walba filo for example gabadhaadi yaaba jeclaatay cid reerkayaga ah wiil cidayada ah waad u diiday maya qabiilkana ma gayo waa u diiday waxa laga yaabaa nin diinta islaamka soo galay oo gaal aha inuu gabadhaada ka soo doonto waa habeenka kuugu farxadda badan waxaad u dhigaysaa aroosku ka weyn yahay waxaad rabtaad sameynaysaa laakiin qofkii walaalka ahaa ee muslimka ahaa ee diinta kula wadaagay markuu gabadha ka soo doontay waa habeenka geeridu ku taal sama heer waxa laga yaabaa hooyada iyo aabbaha heer iyo jaahilnimo waxay ka qabaan inay gabadhoodaba u dilaan ka uga siiya maxamni reer hebel ah seeba ula hadashay ka uga siiya walaa nafta ka qaadaan dadku marka isku ma jiraan dad waxaa jira hadda waxoogaa indhaha u furmay oo allaha ka baqanaya oo diinta si fiican u dhandhamiya iyo dad waxaa jira
bacun ku xidhantay oo jaahilnimo iyo badownimadii hore lafta uga jirto. Soomaali waxay ku faantaa ani ilbax baan ahay, isagoo ninkan kule ilbax baan ahay kugu faani ayuu beri wuxuu rabo ku dhahaa maya waad qaldintiin. annaga dad Soomaaliyaan nahay, dad walaalihiinaan nahay, dad diinta islaamka inala wadaagaan nahay. wax aleelo waxaadna dheertiin ma jirto. sagaalkay hooyadaa kugu dhashay ayaan annagana ku dhalanay. sagaalkay hooyadaa caloosha kugu waday unbaa annagana nalagu waday. diintii islaamka ahayd ee lagugu meheriyey ayaa annagana nalagu meheriyey. xadhiggaa xalaasha ah ayaan ku dhalanay eed adna ku dhalatay. marka rabbigiina iyo raxmaankiina intaad ka baqataan midabta koorka naga daaya. waadna ciisheen, waadna gubteen, caloosheedii cuqdad baa ka buuxda. maalin walba abowsadka facebooka markaan galo qabiilkaygaan moosta markaan arka aan ugu necbaha waa ooyaa, waan gubta, waa isdhaafiya. dhibaatada hana laga daayo. dadkaygii afrika joogaanu ooyayaa, dhibkaa laga daayo. yaa rabbi yaa raxmaan, ilaa u gargaar, ilaa u gargaar. dadkayga dhiban ilaaho u gargaar. Soomaaliye, Soomaali weyney, meel walba adduunka aad joogtaan, inagu waxaad samaysateen 5 Soomaali, 4 Soomaali, 3 Soomaali. annagu inagumaba jirnaba soo saama 5 Soomaali inaguma jirno. horta taasaa ka kow ah. 5 Soomaali cid ay tahay horta animaba aqaaniba. 4 Soomaali cid ay tahay maba aqaaniba. Soomaali Soomaaliyaan ka imid. qabiilba intaas weeyaan soma. Soomaali intaa kuma eg. ani reebel baan ahay, reeb maxay baan ahay, reeb futuub baan ahay, reeb cali baan ahay. aftirsin hadda maanta waabad aftirsatay. 12 maanta waxaa laga yaabaa qofka suu kuugu aftirsanaaye xitaa inuuna biyaba cabin. qabiil jacayl wadnaha dhan baa soo dhacaya. markaasuu dhaha anu ina hebel ah oo reebel baan ka ahay, oo reeb maxay baan ka ahay, oo kan baan ka ahay. qabiilkiisa hal kelmad haddaad ka soo qaato uu dhidida alla uu gubana. bismillaahi raxmaani raxiim. roob camal uu da-aya. waayahay waad dhimatay, ilkii baa lagu geeye, waa lagu aasay. mid baan ku weydiiyey, ilaaha subxaana qaadir ah su-aasha u horeyso ku weydiinayo ma man nebiyuka mise waa man qabiiluka? qabiilkaagu yuu yahay maa lagu weydiinayaa. ma diintaadaa lagu weydiinaya mise qabiilkaagaa lagu weydiinaya? ma nebigaaga maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariis iyo badbaadaba korkiisa ahaatay ayaa lagu weydiinaya mise qabiilkaagaa lagu weydiinaya? taa ku tusaale qaado. qabiilkaad u dhididaysa u gubanayso adoo intaad kitaab soo qaadato quraan akhrista wax ku dhaamo malaha. intaad anaga nagu mashquuliyada qabiilka aad gariiraysana adoo quraan akhristo ilaahay bariya wax kaaga fiican malaha. dadka qabiilada jecel ee wadnuhu qabiilkuuga yaalo kuwa waxaaba ku fiicnad markay soo toosan wejigu inuu qabiilkuuga dhajismee xagga minalaahida. ee qabiilka jecel ee qabiilka u dhimanaya aan la hadlaya. haddaad qabiil jeceshahay waa kuu dhammaatay. kuwa badanaa kulley jiroo dhahaya ma ciddaasaa ha ciddaasaan ahay. wallaahi waanahay oo bilaahi baanahay oonan ka faanayn, oon ku faani, oon ku dhaaro, oon ku dhididi. weligeyna qabiilkii qabiil ahaan ma sheegan. never. weligey ma sheegan. qabiilka waana ku dhashay, waana ku koray, waana intaasaan ku leekado. awlaadna waan ku haystaa alxamdulilah. subax wanaagsan dhammaantiin. kama gaadhaayo inaan seexdo weeyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السو نقد وناكسن انتينا ماشا كجرتا اي سماها جعل اي وناقا جعل نولادا انت حمادة جعلنا إلهي هاي نقاد ترترو
insha allah. anigu message la isoo qorayba ma garanayo hadduu af soomaali yahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.